maayir cabdirasaaq waxaan leeyahay cabdirasaaqow isbitaalka hooyada iyo dhallaanka lacagtii loo qoondeeyey xaggay aaday ka xisaabbax sigsaaga runtii iyo wax isdabamarinta uu maayirku ku kacay ee uu kula kacay cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka waa ta sababtay maanta dadkeenna dhimirka in magaalada berbere la geeyo waa ta keentay habacsanaanta wax isdabamarinta gacan bidixaynta cashuurtii ummadda laga soo qaaday xarun digtaytar bay isu beddeshay markaa waxaan leeyahay warbaahintan maaha in lagu xidhxidho iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayba uu taagnaa khilaaf ballaaran oo u dhexeeya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo maayirka degmadaasi Cabdirasaaq Hiiro ayaa mar kale waxa warbaahinta la hadlay xildhibaan Axmed Xiise Dharbaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco ahna gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee dawladda hoose degmada Burco ayaa maayirka degmada Burco ku eedeeyay inuu sameeyay sharci jabin khiyaamo qaran iyo awood maroorsi waxaanu barasaabka gobolka Togdheer iyo wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqeen in arrimahani wax laga qabto xildhibaan Axmed Xiise Dharbaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maayirka degmada Burco uu sameeyay cashur korodh aan sharci ahayn waxaana hadaladiisa kamid ahaa sida tan maanta halkan waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka hadlo sidoo kale dhowr qolo oo kala duwan inaan la hadlo ugu horeyn barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo waxaan halkan uga soo jeedinayaa 12kii bishan inuu ku jirnay bisha 3aad 2023 mudane gudoomiye waxa xafiiskaaga kuugu yimi koox ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco xildhibaanadii maalinta ku yimi 3 arrimood ama 3 eedeemood oo loo haysto maayirka magaalada ayay ku soo jeediyeen mudane gudoomiye waxa laga yaabaa inaad dayarsatay sida daraadeed waxay ka fursan weyday inaan meediyaha ama warbaahinta kaaga soo gudbiyo warbixintii ay maalinta xildhibaanadu ku sideen oo tafatiran si dadweynuhuna ay marag uga noqdaan muranka dawladda hoose ka taagan ee la xidhiidha arrimaha sharciga mudane gudoomiye 3 qodob ayaa maayirka keligii lagu eedeynaya maayirku xigeenku lagu eedeyn maayo xogayaha degmada lagu eedeyn maayo maayirka oo keliya ayaa 3 arrimood xildhibaanada golaha deegaanku ay ku eedeynayaan ama ku haystaan mid waa khiyaamo gole midna waxa weeye xeer jibin midna waxa weeye tixgelin la'aan sharci haddii aan qodob u galo gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo bulshada magaalada Burco waxaan halkan uga soo jeedinaynaa maayirka magaaladu inuu ku kacay khiyaamo gole waxaan uga jeedaa khiyaamo gole shuruucda golaha marka la dejinayo waxa ka dooda xildhibaanada golaha deegaanka waxa goluhu isla qaatay ayaana sharciya laakiin haddii meel dhexe wax lagaga daro oo wixii golaha ka soo baxay wax ka duwan meel dhexe lagaga daro waa khiyaamo laga galay golaha waa khiyaamo laga galay magaalada Burco waa khiyaamo laga galay xildhibaanada golaha deegaanka maayirka magaaladu kal fadhigii 8aad fadhigiisii 2aad oo qabsoomay 15kii January 2023 waxaanu ansixnay kadib markaanu dib u eegnay taariifadii guud ahaan magaalada haday tay liisamada ganacsiga haday tay ardiyada markii aanu ansixnay 15kii January maayirku wuxuu la hadlay bulshada magaalada ku dhaqan wuxuu kula hadlay xarunta dawladda hoose hadalkiisina wali wuxuu ku sii jiraa bogga dawladda hoose ayuu ku sii jiraa waa dhageysan doontaan wuxuu sheegay maalintaas ardiyadaha lacagta guryaha laga qaado iyo dhulka banaan darajooyin bay kala leedahay darajada A darajada A2 darajada B1 darajada B2 darajada C iyo darajada D oo lagu soo kordhiyay laakiin aan dhaqan galin ilaa imika mid walba percentage-kii lagu kordhiyay uu sheegay oo wuxuu yiri 40% baa lagu kordhiyay haddana mid walba percentage-kaas intuu noqonayo wuu cadeeyay wuxuu sheegay 150 in darajada koobaad ay ku kordhay darajada labaadna 100 ku kordhay darajada saddexaadna 80 ku kordhay darajada afraadna 60 ku kordhay darajada shanaadna ay ku kordhay 50 darajada ugu dambeysana ay ku kordhay 60 oo iyadoo aan wali dhaqan galin haddaba maxay iska bedelay baa la isweydiinayaa wixii golaha ka soo baxay 15kii January 16kii January uu maayirku bulshada la wadaagay iyo waxaan imika ummadda laga gurayo taariifada ama cashuurta dadka laga gurayo maxay iska bedelay baa la isweydiinayaa maayirka waxaad moodaa xataa naftiisa inuu qiyaameeyo waayo tirada uu sheegayo uu leeyahay darajada koobaad 150 baa ku kordhay haddii aad xisaabisaan 40% cashuurtii laga qaadi jiray guryaha haddii aad xisaabisaan marka la xisaabiyo 50% soo bixi maayaan tiro kasta oo meediyaha mariyayna
meel laba ka soo bixi mayso ta saxdaana ka soo bixi mayso ta ummadda dadka laga ururinayana ka soo bixi mayso marka anigoo ku hadlaya afkii gudahoosaadka dhaqaalaha ee golaha deegaanka anigoo ku hadlaya wakiilka ah oo xubno ka yihiin xildhibaan muuse umar abees xildhibaan maxamed xirsi nugugud isku shaandhayn baa la sameeyey intaa wixii ka dambeysay laakiin may dhaqan gelin saddexdeeda xildhibaan baa ku wada jira guddidaas horena wakiil baan uga ahaa afkoodaan ugu hadlayey iminkana wakiil baan uga ahaa tiradaa uu meyrku maalintaa sheegay marnaba ma soo baxayso annagu bulshada marka laga hadlayo lacagta guryaha lagu kordhiyey waxaanu ku kordhinay 40% meerkaa sheegay waxaanay ku jirtaa qodobadii kalfadhigaa 8aad ka soo baxay marka barsaabka waxaa leeyahay mudane gudoomiye waxaanu ka wada hadlaynaa waa shaqadaadii xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka faqradiisa 56 ama 56 qodobka 56 faqradiisa 6 waxay sheegaysaa golaha degmadu waxa ku waajib ah hadal qoraalada shirarka waa in si degdeg ah 7 casho gudahood loogu soo gudbiyo gudoomiyaha gobolka nuqulna la siiyo wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha waxaan la hadlayaa barsaabka kalfadhigaygu wuxuu dhamaaday 30kii January wixii go'aamo ka soo baxayna waxay 7dii February lagu soo gudbiyo haddii aanu nahay guddida dhaqaalaha haddii aanu nahay badiba xildhibaanada golaha deegaanku waxaanu qabnaa qaybo kamida tacriifada magaalada laga qaadaya maaha tii golaha ka soo baxday xafiiskaaga way warqadii laga helo gudoomiye xafiiskaaga waayo sharciga dhigayo 7 casho ka bacdi kalfadhigu markuu dhamaado in xafiiska barsaabka la keeno nuqul kamida go'aamadii ka soo baxay kalfadhiga haddii xafiiskaaga aanay oolin de waxba sharci maaha ay ka dhiganta taas waa khiyaamo qaran markaa waa khiyaamo golo deegaan oo maayirku ku kacay qodobka labaad ee maayirku sameeyay gudoomiye ee lagu soo jeediyay bulshaduna ay marag maanta inay noqonaysaa waxa weeye xeer jibin wax la yiraahdo maayirku ma ha sharci dejiye maaha golaha deegaanka ee degmada ayaa sharci dejiya shuruucda lagu dhaqmayo maayirku kaliya ma samaysan karo agaasimayaasha iyo shaqaalaha dawladda hoosena ma dejiyaan xildhibaanada golaha deegaanka fadhiista way doodaan wixii ka soo baxaba ah xeerarka ay ku dhaqmayso magaalada iyo degmadu haddaba meerka iyo agaasimayaasha iyo qaybo kamida shaqaalihiisu waxa qiimeeyay guriyihii magaalada ku yaalay oo dhan dabeetana darajooyinkoodii bay isku bedbedeleen golihii lama keenin lagagama doodin lama ansixin sidee sharci u noqonaysaa ninka ama muwaadinka burcadda galay gurigiisa uu shalay tabiyaha ee maanta loo raray yaa u raray cidda kaliya sidaa samayn kartaa waa golaha xubnaha golaha deegaanka kamid ah haddii golaha deegaanku aanay samayna waxay ka dhigan tahay inay sharci jebin tahay maayirkuna isagaa qodobkaa ku kacay qodobka saddexaad tixgelin la'aan sharci ayuu maayirku ku kacay annagu cid kale ma haysana haddaan xildhibaanada golaha deegaanka tacriifada ummadda laga qaado ama cashuurta laga qaado guryaha waxaa jirta cashuur ka baxsan oo dulsaar ah oo la yidhaahdo 38% cashuurtaas 2% waxaa iskale dowladda dhexe 36% ama boqolkiiba 36 ah waxaan u qoondaynay 3 hay'adood oo ka hawlgala magaalada Burco wixii soo xarooda ee 36% ka soo xarooda $2 waxaanu ka dhignay $5 $2 waxaan u qoondaynay jaamacadda magaalada Burco kalfadhiyeedii ugu horeeyay ayaanu ansixinay dalool iyo badhna waxaan u qoondaynay isbitaalka dhimarka ee Maandhaye dalool iyo badh waxa loo qoondeeyay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Khaliif la yiraahdo haddaba iyadoo ay sidaa tahay oo halkana aan si gaar ah la hadlayo hanti dhowrka guud ee qaranka waxaan leeyahay maayirku haddii ay dulsaar tahay cashuurtaas oo dawladda hoose aanay lahayn soomaha sidii loogu talagalay ee golaha laga ansixiyay in loo meel mariyo ma maayirka ayaa hambada ka soo hadha miisaaniyadda u kala tuuraya marba meeshu doono ilaa iyo imika muddadii aanu golaha deegaanka joognay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Khaliifa wax lacaga oo gaadhay ma jirto maayirku xaguu geey maayirkayaga annagaa dooranay sharcigan baanu ku fadhiyaa cid gaar oo sheegan kartaana ma jirto shaqa ayaanu ka wada hadlaynaa maayir Cabdirasaaq waxaan leeyahay Cabdirasaaqow isbitaalka hooyada iyo dhallaanka lacagtii loo qoondeeyay xagay aaday ka xisaab ah
cisbitaalka dhimirka guddoon maayar $180 baad bishii siisaa dee umaynaa qorshayn ma adigaa waxaa doonta siinaya marka 180 lagu dhufto sanadka waa $260,000 ma intaasaynu qorshayn umaynaa qorshayn waxay xisaabtii loo qoondeeyey cisbitaalka dhimirka ee dadka maskaxda madaxa ka bukaa ay ku jiraan inaad sideeda u fulisid sigsaaga runtii iyo wax isdabamarinta uu maayarku ku kacay ee uu kula kacay cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka waa ta sababtay maanta dadkeena dhimirka in magaalada berbere la geeyo waa ta sababtay inay dhakhaatiir takhasus u leh xanuunada dhimirku inay ima waayaan cisbitaalkii dhimirka maayar markaa waxaan ku leeyahay dee waanu ku aaminay haddaan nahay xildhibaanadii golaha deegaanka waxaanu kugu aaminay ismaanaan lahayn dee cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka kharashkii loogu talagalay ayuu gacan bidaxaynaya ismaanaan lahayn maayarku sidoo kale lacag tii wuxuu u sameeyey loogu talagalay percentage-ka markuu ka leexiyay xafiisyada loogu talagalay meelo kale iyo kolba meesha uu jecel yahay iyo kolba wixii soo hadhaa inuu isagu maamulkeedii hayo taana hanti dhowrka qaranka waxaan jecelahay inay kula xisaabtamaan dowladda hoose waxay leedahay hanti dhowr gudaha ayay leedahay hanti dhowrka gudaha waxaa magacaaba sharciyan anigoo tixraacaya xeer hoosaadka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka fulintaha magacowda hase yeeshee golaha deegaanka ayaa ansixiya marka ay fulintu magacowdo waa in golaha deegaanka la keeno 4 hanti dhowro ayaad maayar magacowday maalin kaliya miyaad noo keentay hanti dhowr waanu ansixinay marka la eriyayana maayarku awoodu leeyahay kuma eri karo golaha deegaanka ayaa ka fadhiisanaya oo shaqada ka joojinaya maalin kaliya maad soo eedayn hanti dhowrkii gudaha ee dowladda hoose haddana mar walba mid baad keenaysaa mid baad bedelaysaa taasina cid kastoo ay qusayso waxaan leeyahay waa ta keentay habacsanaanta wax isdabamarinta gacan bidaxaynta cashuurtii ummadda laga soo qaaday inuu maayarku sida uu doono ugu tagrifalo miisaaniyaddii iyo cashuurtii dadka laga soo ururiyey ugu dambayntii waxaan halkan kala hadlayaa taliyaha qaybta biliiska ee magaalada burco taliya biliiska adigaa maamulo aniguna waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka waxaan ahay ka mas-uulahay guddi hoosaadka cashuuraha iyo maaliyadda guryo badan oo magaalada burco ku yaala maalmahan babuuq baa ka taagnaa dadku waxay leeyihiin cashuurtani maaha tii goluhu ansixiyey askartiina way soo xidhxidhaysaa haddii halkaa nabadgeliyo darra ka dhacdo waxaan ku leeyahay taliya sharcigaa ay askartu dadka ku soo xidhayaan waa baadil lacagtii golaha laga ansixiyey lacag aan ahayn haddii dadka la weydiiyo oo dabeetana dadka lagu soo xidho dadka waa laga gerdaran yahay taliya markaa waajibaadkaaga gudo waxaan halkan ku hayaa cadaymihii oo tafadiran waxa weeye waa cashuurtu markii hore intii ay ahayd intii ay noqon lahayd inta iminka dadka laga soo ururiya baadilka ah percentage-kii ku kordhay wax waliba halkaas ay ugu qorayiin iyadoo dokumentiyana halkan aan ku hayaa waxaan hayaa iminka foojaro waxaan hayaa foojaro tusaale ahaan maamada ama hooyada waxaa la yidhaha khadiijo cali magan sanadkii hore waxaa laga qaaday 125,000 oo laana sanadkanna waxaa laga qaaday 372,000 oo shilinka Soomaaliland xageebay ka timi lacagta kororka intaa leegay ilaa golaha deegaanku 40% buu kordhiyey lacagta halkaas siyaadada maamada waa in loo celiyo lacagteedii hooyada lacagteedii waa in loo celiyo haddaan iminka loo celina sanadka dambe waa in magdhow loo siiyo taliyaha qaybta biliiska warbaahinta wasaaradda arrimaha gudaha baro saabka gobolka intaba waxaan ka u cadeynayaa shalayto waxa dhacay warbaahinta xubno ka tirsan in lagu xidhxidhay dawladda hoose ee magaalada burco gaar ahaan dawladdeedii hoose waxay isu bedeshay xarun dictator bay isu bedeshay marka waxaan leeyahay warbaahintana maaha in lagu xidhxidho go'aamadii ka soo baxayna waa in sideeda loo fuliyo dawladdu si degdega waa inay wax uga qabato ayaan leeyahay oo ay shuruucda ku waajibtay ka gudato cabdirashiid timir home cable TV burco